وولاشين كبت حاجي أنا إذا أبدأ قراية ولا ليالو information كي حلي قبلي ولا عليه أنا إسدلي قبل اللي دلي القراية عاي information باكسو سايدي more information أنك هلينا ضد يا أدقولو يعني اسمه غلي ولا ليالو وحل يري هرتالو وبرصنين حلو إسك حناقنا يقفل بوي حناقو بريو because gabadha ayaa xanuun nagu haysay maadaama gabadh qof la dilaayo la soo duubay la garaacayo misana la qaawinayo marka waxbay ku yimaadaan arrintu sida nolo kugu sheegay way ka yara duwan tahay waxba suuga ku ah sida nina meesha joogay oo brother police ninkii la dhahayo kale waxba kama jiraan nin meesha ma joogin gabdhuhu saddex ay ahaayeen gacalayaal marka qofka gacantiisa aan arkaynay shaatiga buluuga biyaha qabay waa gabar marka nin meesha ma joogin ninka brother police ay dhahaysa gabadhu ayada naftirkeeda waa ogtahay waxa waaya la yiri nin hindiya oo jidka maraayay ninka booliska wici doono waaye oo caawin doono markay gabdhii ka kala tageen meesha ninka brother police la dhahayo horta waa ninkaas hindiga la yiri meesha nin ma joogin waa alxamdulillah arrin lagu farxo waaye because waxaan aad uga naxnay in gabdho ma aragto walaalo is dilaayo oo nin la sii joogo waxyaabaha aan ka shoognay ma aragtay ay kamid ahayd marka Soomaalidu hore waxay u tiraahdaa aragto qof caloosha ka soo jeedo kiid soo dilay ma aragtay inuu nool yahay ma ogide kaas bal soo hubsay sidoo wuxuu jiraan wax la hubsadan oo fiican tahay laakiin hal mid dardaaran yar dadka reero wax duubow waxa ogaataan dadka bini aadanka qof kasto sharaftiisa iyo cirdigiisa wuxuu ka jecel yahay malaha dadka wax duubow taas iyo ka darna idin dambeeyay waxa la ii sheegay oo dad xog ogaal ii sheegay marka waxa la ii sheegay oo dad xog ogaal ii sheegeen kilibyo iyo sawiro 2014 gabdhahaas laga qaaday meel shiisho lagu cabaayay iyo meel ma aragtay ii sheegay isaga baashaalayeen iyo gabdhahaas oo waliba in qaarkood hooyooyin yihiin oo ilmo waaweyn u joogaan in meeshan lagu duloobay oo lagu bacay oo TikTok la yiraahdo in gabdhaha la soo dhigay oo waliba waxa gabadhaas ay ka soo dhigtay qolal intay ka soo furatay waxyaabaha ay soo dhigtay inay ilaa 2014 ki haysatay iyo 2016 sawiro si ay ma aragtay ugu dhibaatayso waana dad walaalaha ma kala geyso dad ma aragtay Soomaalinimadu ka dhaxaysay ba kala geenin macadalahay dad walaalo first cousin ah adigu wixii dhacay dhaceen alcumuum gabdhahaas haddii ay soo wici lahaayeen ma aan soo qoon lahayn oo arrintaas siday u dhacday ay igu sheegi lahaayeen qaab ka duwanaan ma aragtay wuxuu sameeyay dhihi lahaa good advice siin lahaa laakiin ma dhicin waxa qornayd gabdhii inay xanaaqaan ay duulaan gabadhii dhibaato loo geysto marka gabdhaha u soo duceeyay marka haddii ay ma aragtay intaysan xanaaqin ilaan xanaaqu ma ogtaa qofku markuu xanaaqsan yahay waxyaabo badan oo ku dhici kara dambiyo badan ku dhici karta waxyaabo badan aad qaribi kartaa qofku markuu xanaaqsan yahay sidiisaba inuu ma aragtay inta caqliga kaashado dad kalena hadday ka agdhow yihiin la qabto oo la dejiyo aad u fiicnaan lahayd wax walba shaydaan iyo xanaaqi ka ahaatay gabadhaas walaasheen ah ayadana Allah u dhibdhaamo waxa aan ila quman horta hore tan waa ku cibr qaadasho waay cashir waay tan qof dambo oo wax duubo dadka wax duuduubow dhibaatooyinkan oo kala ka imaanayo in kow la iska siiya imaanayso dadka sharaftooda iyo cirdigooda looma gafo dadkana waa dad walaalo ah gabdhaha waa first cousin gabdhahaas wanaag la dhex dhigo kiiskas in la iska daroob gareeyaan ku baaqaya la iska daroob gareeyo gabadha haday nooc caafimaad qabto aysan maanta dhaawac muuqdo ama ma aragtay dhaawac weyn duusan jirin in waxay ayadaba geysatay way ogtahay dadka walaalaha is cafiyaan oo kiiska iska daroob gareeyaan oo ku baaqaya oo salaamaya gabdhaha u soo wada duceeya insha Allah